darajada kala duwan ee lagu tahay ciidamada Soomaaliland war-saxaafadeed uu soo saaray wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxa uu ku sheegay inuu ku faraxsan yahay in guulahaasi shacabka Soomaaliland ay gaareen waxa uu sheegay inuu doonayo inuu ku hadlo hawlihii ugu dambeeyay muddadii 3 sanadood ee xilkii haysay xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo oo uu sheegay in horumar ballaaran ay ku talaabsatay ka mid tahay qaybinta darajooyinka isagoo u mahad celiyay madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Sinaayo waxa uu Dr. Maxamed Rashid uu yiri waa arin cajaa'ib ah in ciidamadeenu muddo ka badan 20 sanadood darajo laan ay joogaan oo kaalintooda ka soo baxeen laakiin maanta waxa sharaf u yiri in ciidamada iyo xukuumadda qarankeenuba ay heleen darajadii ciidamada qalabka siday waxa kale oo xusun mudan buu yiri in madaxweynuhu aanu darajooyin kaliya garbaha u surin ciidamada balse xitaa uu gunooyin darajooyinka ugu daray waxaan rajaynayaa in sidan si ka fiican ay u dhici doonto waxaan ku amaanayaa buu yiri madaxweynaha Soomaaliland in arintaas uu ka dhabeeyay oo sharafta iyo karaamada ugu yeelay ciidamada kala duwan waana guul runtii u soo hoyatay Soomaaliland ayuu yiri wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Maxamed Rashid Sheekh Xasan